fadaa'isha bisha barakaysan ee Ramadaan walaalayaal way farabadan tahay lamana soo koobi karo. axaadiista nabigana sallallahu alayhi wasallam way tilmaantay waxa waaye ka horna waxa tilmaamay hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo kitaabkiisa. hadaba bal dhowr axaadiis aan soo qabanno nabiga wuxuu Ilaahay sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa ah oo Abu Hurayra warinayo radiyallahu anhu wardaah waxa uu leeyahay man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. qofka bisha Ramadaan waxa weeye sooma oo isu taagan cibaadadeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu dhaafaa dambigiisi. hadaba hadii aad dambi dhaaf ku helaysid bisha Ramadaan waxa kale aad rabtay maxay tahay? nabiga waxa uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiiska Bukhari ku jira waxa uu leeyahay idha dakhala Ramadaan idha dakhala shahr Ramadaan bisha barakaysan marka ay soo gasho waxa weeye futihat abwaabus samaa albaabada samada ayaa la furaa wa ghulqat abwaabul jahannam albaabada naarta iyo jahannamana waa la xiraa wa sulsilatish shayaatiintana waxa weeye waa la xakameeyaa oo waa la xiraa. nabigu waxa uu ku leeyahay riwaayo kale idha jaa Ramadaan marka uu yimaado futihat abwaabul janna albaabada jannada ayaa la furaa. riwaayatu Muslim yadana waxay ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri futihat abwaabur rahmah waxa la furaa albaabada rahmada. idan maxay ka dhigan tahay albaabada samada ayaa la furaa? culimadu waxay dhaheen waxay ka dhigan tahay futihat abwaabus samaa ducada ayaa waxa weeye istijaabo ah oo la aqbalaa bisha barakaysan. sidoo kale futihat abwaabul janna culimadu waxay ku macneeyeen in ay tahay waxa weeye bisha Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa ayuu qurxiyaa adoomada saa'imiinta ayuu qurxiyaa marka uu qurxiyo bisha Ramadaan baa la qurxiyaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala si ayuu soo gaadho naxariista iyo raxmadda jannada ayuu soo gaadho adoomaha Ilaahay iyo barakaadka. hadaba adoon yahow Ilaahay haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu adiga dartaa samada u furay Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii albaabadii jannada lagu furay Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii uu albaabadii naxariista ku furay Ilaahayna waxa uu leeyahay wasi'at rahmati kull shay rahmadaydu shay kastaba way ka balaadatay oo ka weynaatay fasaktubuha lilladhin waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri waxaanan u qorayaa kuwa waxa weeye taqwo iyo cibaado iyo waxa weeye laga helo Ilaahay hoggaansankiisa subhanahu wa ta'ala. idan naxariistaas oo dhan waxay ku tusaysaa waxa weeye fadliga iyo manzilada ay u leeyahay bisha Ramadaan ayay ku tusaysaa. sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugnaatay in uu dhahay waxa weeye wal hadith inda nisaa'i ataakum Ramadaan waxa idin yimaaday bishii Ramadaan baa idin yimaaday shahrun mubaarak wa bil barakaysan shahrun mubaarak wa bil barakaysan tuftahu fihi abwaabus samaa samada albaabadeeda ayaa la furaa wa tughallaqu fihi abwaabul jahiim waxa la xiraa albaabada naarta jahannaba ee jahiima ayaa la xiraa wa tughallu fihi maradatash shayaatiinta kooda waaweyn ayaa la qabtaa oo la xakameeyaa. idan waxaan dareemaynaa bishaas inay tahay bil khayr oo khayrka oo dhani uu furan yahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala amalka jaliilka ah waxa uu ku siiyay adiga. nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa kullu amal ibn adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. amalka waxa weeye kasto oo bil aadanku qabto isaga ayaa iskale illa as-siyam soonka marka laga reebo fa innahu li wa ana ajzi bih. soonka aniga iskale buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala anigana ka jazaynaya. culimadu waxay dhaheen
waxaa weeye cibaado kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jideeyey ilaahay isagaa iskale fadligeedana isaga ayaa waxaa weeye ka jazaa'isiiya qofka qabta haddaba macnuha ku jiraayay waxa uu yahay bisha ramadaan waxaa weeye fadligeeda iyo jazaha la isa siinayo abaalgudka la isa siinayo ilaahay unbaa og ee cid ogi ma jirto waxaa kaloo ay tilmaamaysaa bay dhaheen culimmadu tacdiiman wa takriiman lisharafi hada الشهر waxaa weeye bishan sharafta ay leedahay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu u weyneeyey oo uu qadariyey haddaba intaa waxaan ku dhaafi karnaa bisha ama ku dhaafaynaa bisha barakaysan ee waxaa weeye fadaa'isha ay leedahay oo ilaahay subxaanahu u dhex dhigay